بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذا نوحن سوق بنينا طبنكي سؤالات صدحات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا حريري انت حاس سؤال كوي لباتنات انت حاس أيو نبي قرسدي عليه الصلاة والسلام انت بو سكد انت حاس أيو نبي قرسدي intee buuse ka dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caqdi ku xirtay guur oo nikaaxsaday 11 xaasa wuxuuse ka dhintay 9 ayuu nabigu nikaax ku xirtay laakiin wuxuu ka dhintay 9 arrin isaga u khaasar bayna ahayd lagagama dayan karo kuwa maqlaayay la yiri sheekh hebel 9 buu qabi jiray nabigan ku dayanaya buu ku leeyahay marka waa jaahil ee ma aha sheekh 22 sheeg inta wiil iyo inta gabdhood nabigu dhalay inta wiil iyo inta gabdhood oo nabigu dhalay sheeg iyo magacyadooda nabigu wuxuu dhalay 3 wiil iyo 4 gabdhood nabigu wuxuu dhalay 3 wiil iyo 4 gabdhood saddexda wiil waxa la oran jiray Abdullah Qasim iyo Ibrahim gabdhahana waxa la oran jiray Fatima Kulthum Zainab iyo Ruqayya horeyna u soo sheegnay 6 kamida inay Khadija bint Khuwaylid u dhashay Ibrahimna waxa u dhalay Maariyat al-Qibtiyya mataqaana ilmihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka kaliya oo gadaashiis markuu dhintay ka bacdi nolosha uga dameeyo dhintay mataqaana caruurtii nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka kaliya ee isaga gadaashiis dhintay qofta nabiga uga dameeyay nolosha oo gadaashiis dhintay waxa la yiraahdaa ilaa 6 bilood ka dameeyay waxa la yiraahdaa Fatima bintu Muhammad لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها qofta nabigu ku wardarsaday weeye haday Faadimo waxad lahayd gacantan jar laha ee la jifiyana banaa nabigu ma uusan noqon gabadheedana ka reeb kuwa kalena gacmaha jar maya haday waxad lahayd buu yiri sharciga waa loo wada sameeyay gacantan goyn laha alayhi salatu wassalaam 24 qazwo iyo sariyo maxay kala yihiin qazwo iyo sariyo maxay kala yihiin qazwo waa af carabi waa dagaal marka waxa qaada hada madaxdii oo la socota dagaal looma kala haro nabigu marka dagaalka uu raaco qazwa la oran jiray sariyana waxa la oran jiray goosan ama sahan ciidamo loo diray nabiguna ma raaci jirin calayhi salaatu wasalaam marka qazwo iyo sariyo saasay kala ahaayeen hadduu nabigu la socdo qazwo way hadduu nabigu la socona sariya la oranaya 25 su'aal la yaab leh nabiga iyo Abu Bakar oo ahaa dadkii ummadatan ugu fadliga badnaa markay u hijroonayeen Madiina ma u duuleen mise dib bay ka mareen safarka isaga nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo Abu Bakar markay Madiina u hijroonayeen ma u duuleen sida inuu maqallo dad baa duula mise dib bay ka mareen safarka isaga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Abu Bakar bashar bay ahaayeen lugahay ku socdeen geel bay xataa gateen oo ay fuulayaan marka wax duulimaad la yiraahdo ay sameeyeen ma jiro waxay galeen god kaga dhuunteen gaaladii
intaas waxa weeye dariiqadii bedelanayeen nin bay ijaarteen Cabdullaahi ibn Urayqit la yiraahdo oo dariiqa kala yaqiin oo mushrik ahaa si uu tuso dariiqa Madiina xataa iyagu ma aqoon marka waxa ku tusaysaa wax duulimaad la yiraahdo inayan jirin hebela buuba iyo hebela halka ka baxa yaan lagu sirin 26 waxaanu maqalaa godkii nabiga uu galay Qaaru Thawr isaga iyo Abubakar markii gaalada ka dhuumanayeen macaara isku gedisay masxuunsha tirtiraysay raadkooda waxaanu maqalaa caaro ayaa godkii Qaaru Thawr ay galeen nabiga iyo Abubakar oo kaga dhunteen gaalada macaara afkiisa xirtay xunshana markaas miyay raadkooda tirtiraysay maya warkaasu waa wax kama jiraan ma sugna caarana ma oodin xunshana ma ayan tirtirayn raadkooda arigii Abubakar baa la soo marinayay meesha si raadkooda loo tiro raadka la tiraayana wuxuu ahaa dadkii u khidmeynayay nabiga calayhi salaatu wassalaam sida Asma bintu Abubakar oo daatu nataaqayn loo yaqaano baa ariga la marin jiray raadkii si aan loo ogaanin meeshay qaadeen iyo meeshay galeen 27 dagaalkii Badar goormuu dhacay sanadkee buu dagaalkii Badar dhacay dagaalkii Badar wuxuu dhacay sanadkii labaad ee hijriyada markii la soo hijrooday ee dawladda islaamka laga sameeyay Madiina oo cadow badan ay yeelatay ayaa lagu soo duulay oo Quraysh ay ku soo duushay rabeen inay baabi'iyaan dagaalkaas Badar marka sanadka labaad ayuu dhacay 28 dagaalka Badar oo lagu jabiyay gaalada Quraysh oo kibirka badnaa qabiiladii kibirka badneed ee Quraysh mushrikiinta ahayd lagu jabiyay intee gaalada looga dilay inteesa looga qabsaday maxaabiis Quraysh oo lagu jabiyay dagaalkii Badar intee lagaga dilay intee baase laga qabsaday oo maxaabiis dagaalka Badar waxa laga dilay 7 madaxdoodii raggii ka dhaqaaqayay 7 gacanta looga dhigay marka waxa gaaray jab ay weligood ku xisaabtamin 29 waxaad sheegtaa hal ama labo ama saddex gaaladii waaweyneed oo maciye gamarta ahayd oo nabiga cadowga weyn u ahaa ee dagaalkaas lagu dilay Badar waxaad sheegtaa dagaalkii Badar gaaladii lagu dilay ee madaxda ahayd hal ama labo ama saddex waxaanu soo sheegnay in 70 laga dilay Quraysh 70 nin in laga dilay marka 70kii way badnaayeen laakiin saddex baan ka xusaynaa Abu Jahl ninka nabigu bixiyay oo Amr ibn Hisham la oran jiray Umayyah ibn Khalaf nin la oran jiray iyo Utba ibn Rabi'a saddexaas ka soo qaadanayna Abu Jahl Umayyah ibn Khalaf iyo Utba ibn Rabi'a صدن dagaalkii Uhud intee asxaabta nabiga ayaa ku shahiiday dagaalkii Uhud oo ah dagaalkii ku xigay Badar intee asxaabta nabiga kamida ayaa ku shahiiday su'aashaasna jawaabteeda adan ku daynayaa inaad ka jawaabtid commentigana igu soo qortid intii ku shahiiday asxaabta nabiga kamida dagaalkaas Uhud inta ayaana ku soo koobaya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.